waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada arday waxaan bilaabi doonaa casharaanteennii online-ka ahaa taxana ahaa gaar ahaan classeska form 2ga maadada chemistry-ga waxaynu soo qaadanay casharaanteennii hore shalay toole ama aynu ka soo hadalay casharka loo yaqaano hard water iyo soft water oo soo qaadanay isla markaasi hard water-ka aan shalay soo qaadanay maantana waxaynu eegaynaa 5.6 buu ahaa kaasi laakiin maanta waxaynu eegaynaa waxa loo yaqaano 5.7 oo loo yaqaano soft water isla markaana loo yaqaano biyaha jilicsan baa loo yaqaanaa way haddaba arday intaa markay ka soo hadalo ardaygu markuu cashar ka dhigto maxaa looga baahan yahay ama maxaa awood u leh inuu ka jawaabo ama uu ka jawaabi karaa maxay tahay ardayga marka koowaad waxaynu eegi doonaa number 1 ardayga waxaa looga baahan yahay inuu sameeyo waxa loo yaqaano define inuu qeexi karo kelmadda loo yaqaano soft water number 1 ardaygu waa inuu qeexi karaa kelmadda loo yaqaano waa soft water way casharka markuu ardaygu dhigto waxaa looga baahan yahay inuu awood u yeesho inuu ka jawaabi karo su'aasha koowaad su'aasha labaad ardaygu waxaa looga baahan yahay identify inuu garto waxa loo yaqaano the advantage faa'iidada way advantage aan waxa loo yaqaano disadvantage iyo isla markaana faa'iido darrada waa disadvantage iyo isla markaana faa'iido darrada of ay leeyihiin waxa loo yaqaano soft water biyaha jilicsan waxa loo yaqaano soft water-ka way su'aasha saddexaad ardayga waxaan eegi doonaa ardayga looga baahan yahay state inuu sheegi karo waxa loo yaqaano the factories qodobada state inuu sheegi karo the factories qodobada that convert taasoo loo bedelayo waxa loo yaqaano hard water biyihii hard water-ka ahaa isla markaana looga dhigayo into soft water biyaha waxa loo yaqaano soft water oo jilicsan way ardayga marka koowaad casharka markii qaadana saddexda su'aalood maanta dhigana ama saddexda objectives baynu dhigana ka jawaabana objectives koowaad ee ardayga ka jawaabana wuxuu noqonayaa number 1 ka soo socda waxaynu qeexinaa marka koowaad shayga loo yaqaano soft water adeeg waxaynu taariif u sameeynaa shayga loo yaqaano soft water way soft water kaasi waxa loo yaqaanaa waa biyaha laga saaro waxa loo yaqaano compounds waa biyaha laga saaro compounds-ka isla markaana noqdo biyo nadiif ah oo la isticmaali karo waa marka biyaha laga saaro compounds ama mineralska isla markaana ay noqdaan biyo nadiif ah oo la isticmaali karo intaasoo ingiriisi daba qorno waxaana arday waxa loo yaqaano waa when waa waqtiga water biyaha soft water-ka loo yaqaano is removed laga saaro of the compounds waxa loo yaqaano isku dhisyada of the compounds waxa loo yaqaano isku dhisyada laga saaraya in order to get iyagoo markaasi noqonaya waa in order to get iyagoo markaasi noqonaya waxa loo yaqaano ama la helayo inay noqdaan waxa loo yaqaano clean air qaar nadiif aan sidoo kalena ay noqdaan waxa loo yaqaano usable water biyo la isticmaali karo arday waxaan idhi soft water-ka oo biyaha jilicsani waa marka biyaha laga saaro compounds-ka loo yaqaano isku dhisyada isla markaana ay noqdaan biyo nadiif oo clean air isla markaana ay noqdaan waxa loo yaqaano usable qaar la isticmaali karo taariifka labaad ama qeexidda labaad ee bixina arday waxay noqonaysaa sidan soo socota waxaana waa biyaha sameeyo xumbada ama xoorka marka lagu qaso waxa loo yaqaan saamunta waa biyaha sameeyo xumbada ama xoorka marka lagu qaso waxa loo yaqaan saamunta way aynu eegna arday hadaba qeexida labaad wuxuu oranayaa
is a water adeeg waa biyo is a water waa biyo which kuwaasoo does readily waxaa loo yaqaano form samaynaya waxaa loo yaqaano leader xumbo ayay samaynayaan arday waxay samaynayaan waxa loo yaqaano xumbo aba xoor waxa loo yaqaano laakiin goormay samaynayaan marka mixed lagu qaso soap solution waxa loo yaqaano saabuunta soap solution laga dhiga minan ay ku jirto waxa loo yaqaano saabuuni arday waxayna qeexnay laba qeeximood ama laba tacriif ay sheegeen tacriifka koowaad waxayna soft waterka waa biyaha laga saaro compoundska isla markaana noqonaya wax loo yaqaano biyo nadiif oo la isticmaali karo sidoo kale waxayna tacriifka labaad waa biyaha sameeyo waxa loo yaqaano leader xumbada marka lagu qaso waxa loo yaqaano saabuunta way isla arday waxaan odhanahay dabeeg hard waterka biyaha loo yaqaano waa hard water biyaha loo yaqaana waxa loo yaqaano hard water biyaha loo yaqaano hard waterka is removed ions marka laga saaro ionada is removed ions marka laga saaro ionski amba waxa loo yaqaano mineralski adeeg marka laga saaro ionski amba waxa loo yaqaano mineralski intuu waxay noqonayaan waxa loo yaqaano soft water si automatic waxay isugu bedelayaan shayga loo yaqaano soft water oo waxa loo yaqaano biyo jilicsan arday waxaan ka jawaabnay iminka waxaan ka jawaabnay arday shayga loo yaqaano objectiveska koobaad waxaan ka jawaabnay objectiveska koobaad oo loo yaqaano define a soft water way ka labaad waxaan eegnaa arday ciwaanka objectiveska labaad ayaan eegnaa objectiveska labaad wuxuu kooranayaa objectiveska labaad arday waxaan waxa loo yaqaano waa advantage waxa loo yaqaano disadvantage waa advantage ama waxa loo yaqaano disadvantage of soft water waa faa'iidada iyo faa'iido darrada ay leeyihiin biyaha loo yaqaano soft waterka isla markaa jilicsan arday marka koowaad soft waterka number 1 waxaynu eegaynaa waxa loo yaqaano advantage-kooda waxaynu eegaynaa number 1 shayga loo yaqaano advantage-kooda advantage-ka laakiin yaa iska leh of a soft water waxa iska leh waxa loo yaqaano biyaha loo yaqaano soft waterka biyaha jilicsan baa iska leh haddaba marka koowaad arday waxaynu nidhi advantage of soft water oo noqonaya faa'iidada ay leeyihiin biyaha jilicsan waxaynu ku soo koobanaa laba faa'iido labada faa'iido koona waxaana inta badan biyaha waxa loo isticmaalo ka saabuunta iyo waxyaabaha lagu tijaabiya sidoo kale waxa loo isticmaalaa dharka iyo waxyaabaha lagu meedha biyaha mostly inta ugu badan haddaba biyahani marka saabuunta lagu qaso waxay sameeyaan xoorka isla markaana maryaha waxay u bedelaan waxa loo yaqaano nadiif xoorka waxa lagu jeedaa amba xumbada soo dumarta biyaha arday waxaynu marka koobaad qodobka koobaad waa it make biyaha soft waterka loo yaqaana it make waxay sameeyaan waxa loo yaqaano soap leader waxa loo yaqaano xumbada ama waxa loo yaqaano xoorka better oo aad u fiican ay ku sameeyaan waxa loo yaqaano marka lagu qaso getis waxaan la helayaa waxa loo yaqaano waxa loo yaqaano cleaner closes maryo nadiifa marka xumbada la helo waxa la helayaa waxa loo yaqaano maryo nadiif oo faa'iido koowaad leeyihiin in xumbo la helo kadibna maryaha lagu nadiifiyo qodobka labaad arday waxaynu eegnaa shayga loo yaqaano faa'iidada labaad ay leeyihiin faa'iidada labaad ay leeyihiin waxa loo yaqaano waa laundry shayga loo yaqaano shaqaaluhu uses wuxuu u isticmaalaa less soap saabuun yar buu isticmaalaa ayuu isticmaalaa soft waterka dan marka loo eego waxa loo yaqaano hard water oo noqonaya waxa loo yaqaano biyaha jilicsan taasi arday waxa ku soo koobanaa faa'iidada ay leeyihiin waxa loo yaqaano soft waterka waxaynu eeganaa faa'iido darrada ay leeyihiin waxa loo yaqaano soft water waa disadvantage oo noqonaysa waxa loo yaqaano faa'iido darrada ay leeyihiin waa disadvantage of waxa loo yaqaano soft water waa faa'iido darrada ay leeyihiin biyaha loo yaqaano soft water ardayda soft waterkaasi biyahaas loo yaqaano soft waterku waa biyaha jilicsan isla markaa tusaale ahaan waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano biyuhu marka xareedda ama roobka oo kale ka mid ah waxa loo yaqaano soft waterka taasaas tusaale ahaan ugu filan soft waterkaasi ama biyaha xareeddaasi tusaale ahaan faa'iido darrada ay leeyihiin waxaa ka mid ah
adeeg waa soft water oo biyaha waxa loo yaqaano soft water-ka arday waxa loo yaqaano contains waxay ka kooban tahay waxa loo yaqaano waa more sodium ion waxay ka kooban tahay ayano aad u fara badan waa more sodium ions ayano fara badan sodium ku jira sodium taas maxay keenaysaa sodium taas arday waxay keenaysaa waxa loo yaqaano waa sodium ion taasi linked waxay ku soo xidhaysaa ama waxay keenaysaa waxa loo yaqaano qofkii bini'aadanka ahaa waa heart disease waxay keenaysaa arday waxa loo yaqaano heart disease wadna xanuun ku keenaysaa qofkii maxay ku keenaysaa wadna xanuun way intaasi waa faa'iido iyo faa'iidarada ay leeyihiin haddii hal qodob ku darna ardayo waxa loo yaqaano bal haddii soft water-ka biyaha loo yaqaano waa soft water oo ah biyaha jilicsan dissolve waxa ku milan metals biro such as sida loo yaqaano cadmium waxa loo yaqaanaa cadmium iyo waxa loo yaqaanaa lead isla markaa leadaasi haddii birta loo yaqaano lead lafteedu ardayo waxa weeyaan waxa loo yaqaano poisonous waa sun waxa loo yaqaano waa laf bir waxa loo yaqaano suna way poisonous-kaasi ama arday waxa loo yaqaano poisonous-kaasi wuxuu keenayaa inay ku keento qofkii bini'aadanka waxa loo yaqaano dhibaato waxa loo yaqaano leadaasi way qodobka u dambeeya ardayga casharka soo gabagabeynaa waxaynu eegnaa waxa loo yaqaano waa making waxaynu ardayga ku eegnaa waxa loo yaqaano waa making hard water to soft water waa making hard water sidii biyaha loo yaqaanay hard water-ka looga dhigi lahaa waxa loo yaqaano into soft water biyo waxa loo yaqaano jilicsan waa making hard water into soft water arday waxay nidhi marka koowaad making hard water to soft water oo noqonaysa sida biyaha hardka ay minerals ku jiraan ama minerals ku badan yihiin looga dhigo biyo jilicsan oo soft water waxaynu qaadanaa waxa loo yaqaano ama qodobada eegna qodobka koowaad biyaha waxa looga dhigaa waxa loo yaqaano soft water-ka looga dhigo qodobka koowaad loo yaqaano boiling waxa loo yaqaanaa karkarin biyaha in la karkariyo isla markaa mineralska laga saaro qodobka labaad waxa loo yaqaan distillation xareedintaas waxay keenaysaa biyaha in la diiriyo isla marka la diiriyo la qaboojiyo kadibna la ururiyo kadibna yusuba loo isticmaali karo qodob kale waa iron wash soda iyadoo lagu daray waxa loo yaqaan sodium carbonate oo sodium hydrogen carbonate isla markaana ay sameeyso waxa loo yaqaan precipitation ama have isla markaana uu ka baxayo waxa loo yaqaan mineralska qodobka ugu dambeeya waa ion exchange sida looga saaro waxa loo yaqaan ayonada marka laga saaro waa ionskii aan loo baahnayn baa laga saaraya waxaana loo bedelayaa ionskii waxa loo yaqaan qaar harmless waxa loo yaqaan dhibaato hadaba aynu wada eegno qodobka koobaad arday waxaynu eegnaa waxa loo yaqaan qodobka loo yaqaan boiling waxaynu eegnaa qodobka loo yaqaan boiling kaasi waxa loo yaqaan it removes waa ka saarida laga saarayo waa it removes waa ka saarida laga saarayo waxa loo yaqaan temporary hardness adkaanshihii ku meel gaarka ayaa laga saaray waa temporary hardness adkaanshihii ku meel gaarka ayaa laga saaray arday way qodobka labaad waxayna boilingku waa it removes waxa laga saaray waxa loo yaqaan temporary hardness adkaanshihii ku meel gaarka way qodobka labaad arday waxayna eegnaa waxa loo yaqaan qodobka labaad oo loo yaqaan distillation waxayna eegnaa qodobka labaad oo loo yaqaan distillation-ka Soomaaliha waxa loo yaqaan kala xareedin waxa lagu soo qaataa foomka qalabka loo yaqaan simple distillation oo loo isticmaalo sea water-ka ama biyaha badda qalabkaasi waxa loo yaqaan arday markii qeexano in distillation kala xareedintaasi the water la sheegay waxa loo yaqaan water waa waxa loo yaqaan biyaha isla markaa spoiled waxa lagu sameeyaa waxa loo yaqaan karkarintaasi biyihii waxay isku bedelayaan waxa loo yaqaan steam condensed qaboway ayay noqonayaan waa steam condensed qaboway ayay noqonayaan kadib markay noqdaan dan waxa lagu sameeyaa waxa loo yaqaan collect in la ururiyo dan waxa lagu sameeyaa waxa loo yaqaan collect in la ururiyo ururinta marka la ururiyo biyihii arday waxay noqonayaan qaar waxa loo yaqaan usable water biyo la isticmaali karo ayay noqonayaan minerals ka laga saaray water minerals aan laga baahnayn ayaa laga saaraya qodobka saddexaad ardayeen eegna wuxuu noqonayaa waa qodobka loo yaqaan iron wash soda waa iron
washing soda adding washing soda way in lagu daro waxa loo yaqaano adding washing soda way adding washing soda haasi wuxuu noqonayaa arday waxa loo yaqaana waxa weeye waxa loo yaqaano sodium carbonate waxa weeye waxa loo yaqaano waa sodium carbonate ka lagu daray maxay sameynaysaa ardayo it removes waxay ka saaraysaa hadeeg waa it removed waxay ka saaraysaa waxa loo yaqaano both labada waa labadee waa biyihii ahaa waxa loo yaqaano temporary biyihii ku meel gaanaashiya adkaashahana way ka saaraysaa waa temporary hardness aan waxa loo yaqaano permanent iyo waxa loo yaqaano biyihii labadooda ka saaraysaa iyadoo sameynaysa waxa loo yaqaano iyadoo ka saaraysa habka loo yaqaano by precipitation habka loo yaqaano precipitationka isla markaana ay sameynayso shayga loo yaqaano calcium carbonate waa calcium carbonate way calcium carbonate kaas arday waxay ku sameeysaa adeeg halkaas ku qoraya biyo waxa ku jira waxa loo yaqaano waa sodium carbonate marka lagu daro waxa loo yaqaano calcium sulfate isla markaana waxa soo baxay waxa loo yaqaano sodium carbonate plus waxa loo yaqaano calcium sulfate wadis waxa loo yaqaano precipitation tani waxa weeye wax loo yaqaano sodium tani waxa weeye aqueous tani waa aqueous tani waxa weeye wax loo yaqaano aqueous labada waa laba aqueous biyo ku jira maahan la isku daray xabada precipitate ka soo ka soo baxay iyo xabada wax loo yaqaano aqueous way qodobka u dambeeya arday waxaan eegaynaa number 4 qodobka u dambeeya waxa loo yaqaano waa ion exchange in ionadii la isku bedelo waa ion exchange isku bedeladiisa qodobka la isku bedelay wuxuu noqonayaa ionadii dhibaatada lahaa in lagu bedelo qaar aan dhibaato lahayn maxay odhanaa ionada unwanted aan loo baahnayn it removes waa laga saarayaa by replacing iyadoo lagu bedelayo waxa loo yaqaano harmless ions ayano aan dhibaato lahayn